السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo wanaswada karam maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxyaabo oo haddii aad qabatid naftaada aa u raaxaynaysid so kulligeena ama haddaan hooyo nahay ama xaas aan nahay ama xataa ninka oo naagta qabo adi dadka aan xiriirka la leenahay waxaa maanta dhan waxaan rabnaa inay qabtaan waxa ayaa ka filanayna inay qabtaan waa eryeynaa maanta dhan waa qaylinaynaa saan yeel saan ha yeelen qaladkan ha galen maanta dhan qofkii celcelisaa lagu hayaa qof markaa celcelinaysid maanta dhan waxa waaye murankii iyo dagaalkiyaa badanayo qofkana wuxuu noqonaa qof oo dependent la dhaho so waxa mas-uuliyadiis ma ka baxaayo ilaa oo riixdid maanta dhan bani aadankan ma riixmaayo waa ognahay so waxyaabahan aan ku sheegaya haddii aad qabatid adaa naftaada break siinaysid horto oo mas-uuliyadda waxaa iska dhigaysaa maanta dhan inaa qof riixdid aa u sheegtid wuxuu subilhay iyo wuxuu iska dhaafi lahay qofkana wuxuu garanaa inuu waajibaadkiisa isaga ka baxo because haddii uusan ka bixin qof u sheegaysa ama ereyaysa ama bursanaysa ma jirto so khudbada ugu koowaad waxa waaye qofka inaadan horto waana aadan siinin unless ay ku weydiistaan so advice-ka badan aan yareyno qofka waxaa advice garaynin ilaa oo lagaa weydiisto midda kale haddii aad tahay midda labaad waxa waaye haddii aad tahay nooca oo afkiisa isku qaban karin oo opinionkiisa oo celin karin ka tag meesha qofka oo kula fadhiisa oo wax kuu sheegaysa intaa maanta dhan waa saan yeelno aad dhehaysid just iska bax qolka spaceka dhan ba oga tag haddii aadan afkaaga xiri karin oo fadhin karin mid saddexaad waxa waaye naftaada fiiri ha fiirin waxa ay suubi lahaayeen maanta dhan waxaan dhahnaa waxaana suubin kartid iyo waxaana suubin kartid then what about waxay suubi kareen iyo waxay suubiyeen ama waxay iska dhaafeen what about waxa aad suubinoosid just do you midda kale waxa waaye qofka horta opportunity inaad siisid waaye inay qalad gasho because qofka qalad markay gasho waxay ka baranaysaa like maanta dhan haddaa ka hor istaagsannahay especially like caruurteena camal ilmaha maanta dhan waxaa rabnaa inaa waxa saxa ay suubiyaan oo cunuga suu wax u baranaa haddii uu qalad galin so it's good inaa xataa dadka waaweyn space aa siisid si ay qaladka u galaan markaas kadib ay baranayaan waxay qaldeen iyo sidii ay u sixi lahaayeen midda kale haddii oo masalan mawduuca uu yahay adiga iyo xaaskaaga ama adiga iyo odaygaaga haddii meesha ay xumaan rabtaa aragtid ama kuleel oo bilaabo rabo ilmaha meesha ka leexi si oo ilmaha ay waxaas u arkin so ilmaha meel safe geey markaas oo soo noqon kartaa haddaa rabtid maanta dhan inaa murantid ama erey wadid midda kale waxa waaye ereyga badan jooji haka daba hadlen maanta dhan maxaasaan u samey weysa maxaasaan u samey weysaa dhihin qofka hal maraa u sheegtay ka soco way dhammaatay mawduucaasito caawinaad qofka caawin markii caawinaad ku weydiisato so ha ka hor ordin oo wixii uu qofka qaban lahay ha qabanin u dhaaf ha qabta horto hadduu qaban waayo ama uu kasoo bixi waayo ama markaas ay caawinaad u baahan yihiin iyaga afkood ha ka dhahan ma igu caawini kartaa waxaan ma ii qaban kartaa so that's important way because dumarka badankood waxa waaye anaka waana ka daba eraygenan wuu badan yahay waana ka hor orodnaa so anakaa waxay qabanayna because maba rabna inaa sabarkii yar womanka sabarkaa yar runta haddii la sheego so sometimes inaa janis isiisid oo sabirtid si oo aan janis si qofka inuu qabto sometimes nimanka hore maka kacayaan oo wixii oo they do it at their own time so waqtiga ii ka rabaanay kacayaanay qabanayaan waxaa u sheegtay so janis si u kacaan ay waxaas u qabtaan ay ha ka hor ordan midda kale markay waxa qabtaan compliment garay so you know like amaan yani waa mahadsan tahay waxaa suubisa thank you you know or good job suubinoosa ilmaha camal aad iyo aad ay u jecel yihiin amaanta markii la amaano more waxay helayaan energy wax fiican ha suubiye isdhahayaan and then more waxyaaba fiican ay sii sameynayaan so ilmaha amal amaanta u badi dad nimankana sidoo kale way jecel yihiin inaa la amaano inaa la acknowledge gareeyo waxa ay qabteen so make sure ikana inaa also soo xasuusisid waxa fiican ay qabteen and midda ugu dambeyso naftaada janisi in aad iska separate yourself so waxa waaye maanta dhan especially ninkii naagta waxaan dhahnaa halaan nahay wax kastoo iskula jirna which is true wax kastoo iskula jirna but most of the time naagta ama dumarka mas-uuliyadda dhan qaado oo wax kasta madaxeeda oo koraa wixii ninka qaban lahay iyo wixii iyada qaban lahaydba so it's important inaa wuxuu isaga qaban lahaa inaa isagu daasid adigana waxaa ku ekaatid wax kastoo
qof kasta responsibility ay leedahay so u ogola Janice isna responsibilities inuu kasoo baxo hadduu kasoo bixinna isagay u taalaa adigana Janice isii inaa breathe garaysid waajibkaaga waa ka baxda waa soo xasuusisa haddii loo baahan yahay and that's it I hope inuu stepskaneeto noloshiina fududeeyo wax yar oo easy ka dhigo waa mahadsantihiin iyo waa nisbada ikram asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu